Magacayga waa Xasan Nur Sharaawe. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga Sharaawe FX. Maanta insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa iga tirtir. Maanta ciwaanka ka hadli doono waxaa waaye sidaaba ku aragteen ciwaanka magaciisa sidaa ku aragteen meesha laga tirtirin sida ciwaanka ku aragteen waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo insha Allah يعني سيدا oo u sameeyo ama sida uu analyze kareeyo suuqa marka imaado oo trade in raasada rabo sida uu analyze kareeyo analysis sida uu sameeyo video inoo dheeraado marhabi adi muddo 10 minutes ama wax ka yar inaa soo kooban raba insha Allah marka guda kale lacagta GBP USD waaye ina trade kareeyo raba maadaama ina trade kareeyo rabo analyzing sida uu sameeyo ama analyzing marar kala duwan la sameeyo marna waxa la sameeyaa asigoo high time frame oo weekly weekendiga kale to isniin iyo axad iyo sabti oo kale to oo suuq off maadaama laga yahay labadaas maalmood kale taa waxa sameyn kartaa focusing sameyn kartaa isbuuc soo socdo meelaha suuqa kala jeeyay sidoo kale to maanta markay imaado hadana subaxdii markaa soo fadhiisay sidoo kale aan waxa jeclahay wax walba oo shala saartay maadaama trade kareeyo shala wax walba oo saartay ina asida ma iska wada cancel kareeyo oo dhaho remove wada dhaho ayaga dhan andankii dib soo bilaabo hadii kadib marka ugu horeyso waxa fiiriyaa daily musli suuqa markaa fiiriyaa daily muxuu ku socdaa yani trendiga waxa ugu horeeyna waxa musli yani mar walba waa ina trendiga la socotaa trendiga hadoo uptrend yahay oo sila ka raadiya hadaa dhahdid maalintaas oo ku dhamaata hadoo sheeg down trend hadoo yahane oo uptrend ka raadis ama buy maalintaas ka raadisid ku dhamaata ama long waxaa dhahdid marka imaado daily oo kaleeto ama weekly oo kaleeto weeklyga wax saasa weyn ma ka fiiriyay musli marka aan wax fiirinayo waxa ka fiiriya maxaa waaye waa range hadda lagu jiro waa maxay labadan range lagu jiraa labada range lagu jiro waa maxay intaan loo dhaxeeyaa oo marka hore meeshaan aan jibiyo labadaas range lagu jiraa waxa ugu muhiimsan oo fiirsanaysa maxaa waaye ama ishaada ugu horeysa qabanaysa labadaas range waaye suuqa muxuu sheegayaa yani sida caadiga oo daily wuxuu sheegayaa suuq inuu ku jiro uptrend ku jiro oo buy soo ahaa hatta laakiin oo doontay reversalka muxuu noqon karaa inta waa laga celi waaye kan inuu as liquidity ahaan u soo cuno oo sidiis u sii ahaado aysan ahaynin inuu kan ina soo qaado kadib inta imaado oo kana reversal shift camal noqdo markuu meeshaan baadi ku xirmo shift camal ay noqonaysaa maadaama shift noqotay kadib inay retracement inuu qaato kadib sii wato oo abuuranto meeshaas ka abuuranto yani ka abuuranto down trend maadaama hadda up trend ugu jiro oo suuqa shift lagu sameeyo laakiin waxaasoo dhan muhiimaddeena ma ahane muhiimadda maxaa waaye oo waqti badan ay ku dhacaysaa oo intaan oo kaleeto suuqa maalinta marka ugu horeeyo hayga ugu badnaa oo sameeyay maxay ahayd waa September bishii September 2024 haddana waxaa la marayaa waa February lama hayso January 20keeda la marayaa macna lowga naga xilliga sameeyay korma waa 13 October oo sameeyay October ka inuu soo cuno liquidity-ga la qaado liquidity-ga marka la qaado suuqa inuu kor aado at least hadoon kan xataa jibiyeenin at least waa inuu 50% ka mid aha move kan 50% ka mid aha soo buuxi macna intaas waa ka saabtag haddaa saari kartin BDR haddaa saaranaysa noocaasa BDR qaabkaas loo saartaa laakiin waa ka teginaa sida caadiga ah ognaa marka dailygaasiga muxuu sheegaa weekly muxuu sheegayay uptrend in lagu jiray oo retracement deep la soo qaatay laakiin hadda dailyga wuxuu noo sheegaa inuu down trend yahay oo shiftiga ugu horeeyay meeshaan ka sameeyay shiftiga ugu horeeyay meeshaas ka sameeyay then kadib maxaa dhacay
ilaa meelahan dhan hata ma dhihi karno kan xataa ma dhihi karno break structure oo qurux badan waaye kan oo kale ataa dhihi karnaa break structure qurux badan dhayliga marka rinjiga ku jira maxaa dhihi karnaa labadan rinjiga ku jira inkastoo weli kaleenahayn rinjigan rinjigan iyo rinjiga inta u dhexayso sababtoo rinjigan weli waa sii socdaaba suuqa oo downtrainkiisa oo sii socdaa waa lasii jibi karaa wax walbaa dhici karo kan oo qaadi karaa sida hadda dhehayne waana liquiditygan oo weekly loo socda weekly liquidity meeshan taal magaceeda maxaa ah صار weekly liquidity أطلع على بس اوكي رينجيga hadda lagu jira marka reenjigana lagu jiraa oo maxaa waaye suuqa waa down train oo socda dhigligina maxaa ahaa weekly maxaa ahaa generalka maxaa ahaa down train laakiin up train oo ahaa laakiin dhigligga waa maxay suuq hoos u socda oo up train down train ku socda down train sababta ku cadaysa maxay hay loo yaali jibinaya hay loo tasal jibinaya kasoo gudub forha wareegayno forha warka asigana sida saxda oo noo sheegay waa maxay forha warka sida saxda noo sheegay waa maxay asigana waa down train down train ugu dambeeyay waa kana also kan down train ugu dambeeyay waa kana aygiisa waa ka taa uma cunad down train ugu dambeeyay waa maxay waa kana marka weekly BD aaday xagee saara kartaa labadan ayaa saara karnaa labadaas ayaa saara karnaa 50% ka mid ah marka retracement oo kan soo sameeyaa sama BD aadayga waxaa laga wadaa adminus meeshaana waa discount يعني بريميوم واي مر والبا ماشي او كوره maxaa بريميوم ماشي انا maxaa discount waay suuq mar walba بريميوم kana waa laga soo sel kariyaa oo waxa laga raadsadaa sale laga raadsadaa sidoo kale to discount kana waxa laga raadsadaa baa laga raadsadaa يفضل marka sidoo kale 4 hour kan muxuu sheegayaa 1 hour ka weekly wuxuu ahaa baysan camal uu sheegay oo ilaa inta ku socdo sidoo kale daily muxuu sheegay asagana down train uu sheegay kan up train uu sheegay laakiin retracement inuu soo dhacay marka 4 hour inuu asagana muxuu sheegayaa asagana sida si la mid ah uu sheegayaa labadan oo dhaxeeya okay waa tagayna 15 minutes meesha 15 minutes xagee waaye meesha trade qaato 50 minutes ma marka 50 minutes soo aado 50 minutes soo aad 50 minutes asigana maxaa sida caadiga ah hadaa fiirino sidlan muxuu ku jiraa range ku jira oo suuqa oo iska daba naqanaya range soo dhaxeeya range ku jira waa xakee inaan iyo ilaa inta u dhaxayso labadaas range ku jira waliba range 50 range ku jira ma dhihi karna marka suuqa maadaama ay ku bayaan bias iyo sellers maadaama ay ku bartamayaan waxaa dhehnaa marka
xoogaa ma jiro high probability ama acid up ma jiro marka si caadi hadda maadaama inta soo ahaa 50 minutekeeda maxaa waaye 50 minute lowga ugu dambeeya waa kana kan 50 minute aa dhihi karnaa kan waa lasoo maahan kan ugu dambeeya kan u dhexeeya labadana u dhexeeya marka lowga iyo high marka ani ahaan 15 minute markaa trade ka qaadanaya maxaa sameeya liquidity-gan intaana loo dhexeeyaa liquidity-gaasaa loo dhexeeyaa maalinta 4 hour retracement maalinta ka raadi kara maxaa maalinta ka raadi kara maxaa waaye maalinta meesha la jibiyo 4 hour retracement u socdaa dhaha laakiin liquidity-gaas haddii la soo qaado oo hooskaan iskala sii socdo oo isweyn meesha lagu soo sameeyo trade ka raadsanaa sina ka soo raadsanaa marka kaliya trade ibn ayaan kormeeyaa marka hadda isbuucan hadda wuxuu ku dhamaaday isbuuc hadda week hadda maalintii maanta maxaa inta ka furantay maandayga hore meeshaasay ka furantay week lahay waa kana previous week lahay waa kana previous week leh low waa kana previous week leh hay waa kana intaana lagu jiraa marka ani halka maro trade is furan yahay maxay meesha marka la soo isweek kareeyo meesha saan camal marka la sameeyo markaasaa trade ka qaadan karaa oo trade sale soo qaadan karaa inta ka soo laakiin meeshaas waxba ma iga banaan laakiin sale-kaas ka rajiya insha Allah sale-kaas ka rajiya inkastoo hadda suuqa si dhan yahay yani direction lehaynin sidoo kale waxa ugu horeeya samee fiirina maxaa hilmaamin mar walba waa inaa fiirisaa waa first factorical maxaa jiro isbuucaas maxaa ka jiro maalintaas maxaa ka jiro isbuuca haddaa waxaysid isbuuca fiirinaysaa sidoo kale waxaa fiirinaysaa maalintaa trade karaysidna news maa jiro mar walbo news jirana tekee suuq waa inaa ka nasataa haddaa trade karaysid hadaa list after news before isha balka waxaa newska markoo dhaca kadib trade karay laakiin idoo news asigoo jiro haddaa trade haddaa qaadatay dhibaato waa ma karatay hadda this weekend oo kaleeto maxaa CBI waxyaabahaas jira FOMC inuu jira umalaya week hadda soo socdo week hadda kormea 19 ilaa maalintaana maxaa jiro ma jiro laakiin khamiis iyo jimcada waxaa jiro khamiis labada newsa jiro jimcadana waxaa jira unemployment claimskan maanta iyo beri iyo saddex maalmo ugu horeysaba maxaa waaye news waaweyn ma jiro marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaa wax ka fahantay haddaa wax ka fahantay insha Allah videoga noo laakiray sidoo kaleeto janalka subscribe soo dheh hadayna ka faa'iidinne wax ka faa'iidinne it's okay waa ku maasanta waqtiga nagu bixisay oo intaa video ila soo gaartay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نونس